دوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد بالغو دوكسدا وعد بالغو ديرسدا وعد بالغو دداليسه أقويان كاغا دورو ددوينو عد كاغا سي gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe ayaa kala qayb galay taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa gabagabada iyo gunaanadka maalinta labaad ee ololaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka beerta xorriyadda ee caasimadda Hargeysa ayaa waxa isugu yimid taageerayaasha murashaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka sharaxan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid ee gobolka Murudijeex waxaanay beerta xorriyaddu ay ahayd mid la ciirciireysay taageerayaal kala duwan oo ka kala yimid daafaha iyo xaafadaha caasimadda Hargeysa ay ka kooban tahay iyagoo oo lulaya boorka iyo calaamadaha astaanta iyo sumadda u ah murashaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Murudijeex uga sharaxan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka markii uu soo gaaray gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe fagaaraha beerta xorriyadda ayaa waxa qaabilay taageerayaal tiro badan oo halkaasi ku sugnaa waxaa munaasabadaasi iba furay oo hadal ka jeediyay gudoomiyaha ololaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid ee gobolka Murudijeex ucid waa doorkani anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha kaambeynka ee xisbiga ucid waxaan halkan mahadnaq ballaaran ugu celinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga ee isaga soo baxay gobollada dalka oo dhan sidii quruxda badnayd ee maalintii ugu horreysay u soo baxdeen iyo sidan ka sii quruxda badan ee maanta shucuurtiinnii u muujiseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin geesta kale halkaasi iyaguna waxa hadalla ay kula dardaarmayaan taageerayaashooda ka soo jeediyay murashaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid iyagoo taageerayaashooda ku booriyay kuna dhiirigeliyay in 31 May maalinta doorashada loo dareerayo ay codkooda ku hubsadaan xildhibaanada ka sharaxan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyagoo sheegay inay yihiin murashaxiin u taagan horumarinta caasimadda iyo sidoo kale taabgelinta shuruucda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid oo halkaasi ka jeediyay ayaa bulshaweynta Jamhuuriyadda Soomaaliland kula dardaarmay inay u codeeyaan murashaxiinta golayaasha wakiilada deegaanka ee xisbiga ucid oo soo sharaxay oo uu sheegay inay yihiin musharaxiin mudan in loo codeeyo geesta kalena gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe waxa uu ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu shalay tamarku hadlayay wuxuu sheegay يطلع من الهند والجانب كان مدحوينها بدو في شيء وحنكحهم من مدحوينها كلمة دار مورا ولا وينه ولا هاي كلمة دار مورا لكن واحد لا ياوي ميريا او شيء اما شو يعرفوا بدو وينه شيء بدو وصوتي كلمتي اروح في شيء بدو يحي فرق كلمتك عروهم وعلى صوتك تبعه ولا صوت صارا أنا يلقى ما يروح يطلع يميني هنا سوريا هاي دموع الملفين لكن ما هذا ما أنت واحد ليه واريا أنا تريد توكي هل كمان كهالي أنا تقول لما يصير كامبيكا واحد كنت ليه ورجعتي لكل البحر والما أنت تصدق لها مشاركة يوم تاجن ولا حين بقى كاركا مثل سوى الكوركي سياسي أخريا والفتينا هاي أرسلنا الفتينا كل المحباين ليلو يلين وإذا كان ما تنفت يلي إيرلي ما تروح عليها والمعلمان ونعكس ونوصف اللي لأن يرى ما تكبر قابتي في سومال مدح البلح بنانيت ما نصوص عمي وحي يهو تقيا سوماليا نهتاين وحي وحوية تبتي كبر باري كعانكي كبر باري إنه واحد هذا ديار قرينا توي كبر باري فنح بنادي سومالنا وكعاني يقول الشيء وحاوله وانا مغل هو اسكده هو غير نوالي ولا وحوية مركا سنح حسبي وحكاش لحن تتفيني لكن وحبك الدوران إنسان ولاقى يدين تولي أمان وإيمان تولي